هلو هلو مين مقشع جوي كم مقلو هلو 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 يا أخي هذا مين مقشع هذا ورنيو إن كوي ماذا أيان ربا waxaan rabaa garab inaad dhisiso jooy si degdeg ayaan garabkaaga ugu baahanaa maxaa yeelay arrintan gabarteeda ayay qasay maxaa ku dhacmar guriga ayay ka soo tagtay ilaa haddana waa la ahay markay soo bixaysana 5 saac ka hor 6 saac ka hor ayaad meesha ku sugan tahay hadda ma ii baari kartaa adigoo ma dhiman ana ku baarayo hadda intee ku sugan tahay marka kombarator ayaa hadda sii dhaafaya okay sawirada iyo macluumaadkeeda ii soo dir aniga wax walba hagaajinaa anigaana baaritaan ka soo binaay okay iga hooyaday shayaadiin isku tagay waay baladkii qasuu haya minaa wax laga qaban baxri la galowha ben idin sheegin adiga meeshaad igu sii sug waayahay mudan ayaa raadinaysaa sarkaanti ayaa raadinaya waxaa la magacsanta ma joogaan haye madhuuri ayaa raadinaya iyada xitaa ma aqaano waa gabadheeda ha ahaatee inta laakiin ma joogto halkan maxaa ka qaldan ii sheeg gabadheeda madhuuri ayaa raadinaya mandhuuri ah halkan ayaan ka soo ma joogto ayaan ku dhahay mana garanayna mandhuuri qof la yidhaahdo tali ninkan qof ayaa soo qaldaa umleyna wuxuuna nahay gabadhaada saldhigaya kala raadiyey maxaa jiro maxaase ii dhibaysaa ii sheeg wax daran ma jiraan laakiin bannaanka ayaa buuq yar ka taagan yahay dood ayaa ka jirta yuu yahay qofkaas waa nin gabadhiisa baadigoobaya gabadheeda halkaanay joogtaa u dhowaa gabadhiisa ah haa adiga qof baa meeshaan ku haysaa ii sheeg maya ma ku arkin waaye hurdada maxaad ii kicinaysaa marka waa waalanta iga tag bax isbitaal maa joogaa saldhig maa joogaa waa kala fahmi inaan la kulmayaan rabaa isbitooraha ma la kulmays ninkaasoo hurdooyno warjoog fiiro kaasoo tuma adii kale joog leexaniyo warjoogaan kula naga leex bakaa leexanay isbitoora ayaan u baahanay xoog baa kula kulmay marka see wax wada banaanka maxaa ka dhacay gabadheeda iga maqan halkaanay joogtaa leegu joog war hadalkayga ma maqshid miya xayawaan marka istaji meesha warshida ninkan yaa waa ii sheeg war waa kiyaan kuu sheegayo oo waalnay haye maxaa kuu daran ii sheeg maxaa rabtaa haye maxaad u baahan tahay ii sheeg warniyo af soomaaligaaga ma fahmin ilaa hadda ma ii maxaa tiri maxaad ka saysaa ii sheeg waraa waayeelkan maxaa waay aniga af soomaaliga weydiinaa waan ku fahma kowdhe fadhiista meeshaan sit down sit down antali isbitoor sarkantii ayaan rabaa halkaa ma joogaa haye maxaa ka rabtaa ii sheeg adigna magacaaga muxuu yees raadinaysaa fansi aniga isbitoore sarkaantii ayaan u baahnaa gabadheeda ayaa iga maqan waxaan igu dambaysay xalay toole kadibna maduuriya arkane xaggee joogtaa maduuriya maxaa kugu dhaca adiga gaariga maxaa joogaysa ayaa u baahanahay xaggee aadiyada yaqa waa ceeb inaad iska joogtahay anigaa raadinaa bax gaarigaa kula qoftan kursi soo fadhiiso okay tali okay soo fadhiiso inta soo fadhiiso maam ha fadhiiso fadhiiso maruu halkan adiga lagugu talagala fadhiiso wariyaa qof dumar inay la socoto maxaad igu sheegi weysaa la yidhi ani maxaan ka ogahay tali yaaqe okay iska baxso hawshaad wado hay hawshaad wadadin adigana sheekada ii wad tali gabadheeda whitefield ayay ku sugnayd xalay toole ninka joel yiraan wuxuu ugu dhaas isbitoor sarkaantiga gacanta ku soo dhigay kadibna saldhig ayuu geynaa waayihi dhibka jira muxuu yahay dhibaatada jirta waxa waaye arrimo familiyaar waa nin waayi arrinka mogtahay may ma ogi waayihi da'deeda ii sheeg da'deeda 25 ilaa iyo 26 28 bisha sagaalaad ayaa 28 u galaysaa waayahay ninkeeda ma wada hadasheen isbitoor horaan kugu sheegay arrimahan waa arrimo qaasa teeda kalena isbitoor sarkaanta haddii aan kala hadlo wax kasta waa uu ogaanaa meeshan saldhigayga waa kuu dheh ninkaa sheegayso meeshan maba joogaba laakiin sidee ku dhacda taas kolley waxbaa qaldana u malayna dhegeysa doore gabadheeda waxay igu tiri guriga fishaal hortiisa nin boolis ayaa iga soo kaxeeyey ninkeeda le fishaal amuu ahaa maya waa saaxiibkeed ii ogolow inaan waa halo joy gabadheeda halkaa ma joogto ma joogto halkaa ma joogto iyaba waxay la hadlaya halo joy waxa kula hadlaya waa Chris saldhiga Whitefield ayaan joogaa gabadheeda markaan weydiinay waxay ugu dhayn ma naqaan isbitoor sarkanti xataa ma naqaan ay ugu dhayn halkii meeshaas adiga iyaaho in aad joogto meesha ma joogtaa haa waan joogaa hadda ayaan badhex taaganahay maduuriina ma joogto laakiin mudan waxaa macquula meesha qalad in oo ka jiro laakiin wax walba
aniga soo hagaajinayo meeshaas isaga tag adig waxaa laga yaabaa station kale in la geeyey anaa wax walba soo ogaanayo dabcan gabadhaada waxba ma gaarayaan waaya markaa soo ogaato ila soo socodsiiye hay okay joy maxaa kugu dhacay hurdo markaa soo dhici weyse saacaddan ay soo wacday saaxiibkee gabadha aabaheed ayaa isoo waco i kacshay hurdada ii kacshay gabadhi dib maa loo celiyey mar labaad iyada maya warkan isteeshinka maba joogtaba arrintaas markii aan maqlana wadnaha ayaabay xanuunay buuka waxaan akhlaaqda leen maxaa waryaa soo xagiigay war sharkaantiyan dhahe ha soo wac ninkaasee maku soo wicin miya asaga ii sheegba maya waa taleefankiisa ninkaas waa dansan yahay gabadhina hadda waa ay maqan tahay hadhowti meediyaha maxaan u sheegaynaa annaga iyo booliska war hadduu isoo wac arrintaas anaga u sheegaayo hay okay laakiin ninkaas haddaan sarkaantii kan muxuu ahaa isaga war ninkaas aniga ayaa wacaaya ama qof ayaan gurigiisa u dirayaa arrimahaasna anigaa xalinaya saa haddeetaa mahadsanid baybay hallow sharkaanti anigu waa ku sugaayey maxaad ii soo wici weyse ii sheeg maxaa kugu dhacayna niyo hurdala'aan ayaa ihaysay maalmahan mana nasto kiis ayaan baaritaan ku samaynayay waana ku daalay run ahaanti wax walba soo okey maaha war gabadhii aawo iida aabbaheeda saldhigga ayuu joogaa wuuna ku sugooyaa yaad ka hadlaysaa mudan sharkaanti maxaa ku hadlaysaa adi waa ilow maa idhiiribtaa war gabadhii aanay kaxay ku dhaha caawo intay geysa ii sheeg oo iga raalli noqo mudane baaritaanka ayaan ku mashquule meeshana ma aanan tegin wiilka magaciisa muxuu ahayne joy ayaa lahaa haa joy asiga ima soo wicin runtii aniguna ka mashquule war adiga fiir ma waalan tahay ninka sidoo kuu soo wacaa waxaa loo baahnaa adiga anaa lambarkiis ku sii ina adiga wacdo ayaa loo baahnaa arrimahaasaa kaa maqan war aniga sidaan hore kugu sheeg waa mashquule meesha haddaan tegana cidna ma joogin anigana waxaan isdhaha arrintii waa la xalliyey hadda mashquul ayaanaha mar kale ayaan wada hadlaynaa macasalaam war waxaan ku dhaha gabadha waa ay maqan tahay maxaa yidhahdee war gabadha waa ay maqan tahaan ku dhaha adiga waxaa lagaaga baahan yahay saldhigga inaad tagto waayah mudane oo wax walba aad soo xaliso waayah arrimahaygana yaa jaraa'idka lagu soo qorin haddaba waa kuu diga nin kuu diga kuma dilin magacayga yaa meesha ku arkay waayahay wax walba anigaa xalinayo mudane arrintan saldhigga laguma xalinayo waxaan kaa rabaa manajerka hotelka inaad la hadasho waayahay wax walba anaan dhammayhayo shaqadaadana waa inaan qabsataa filimkani waxaa lagu tarjumay studio Farmbroch Mogadisho
joy ninka la yidhahda sidee isku taqaanaa joy waa saaxiibkayga qadiimiga muddo fara badanne shirkadda tagsiyaalka ayaan ka wada shaqey jirnay haddana waa ganacsadee ganacsigiisu noocee waay isbitaallada iyo cunnada geeyaa ninkaas oo hadda ninka baaro fara badan oo leeyahay ma leedahay hagaag sarkantii qof la yidhaahda aqoon mu leedahay agaarkeen ma joogaa okay sarkantii qof la yidhaahda annaga ma banaqaanaba intee ka keentay qof walbo meeshaan jooga xadkiisa waa in uu ku ekaadaa shaqadiisana uu qabsadaa maadaama isbatoor anigan ahay ninkanna intaan isbatooro kaleeto waa qayb dambaaristu qabilsan labadan markii laga reebay intiin kale waa iska bixi kartaa ya fadhiista labadiin waa fadhiisan kartaan magaciigu waa sarkaanti girish naayir maduuri aabbaheed aawo maduuri xaggee jirtaa joyce oo kulama soo hadlin joy qof liraa ilama soo hadlin aniga gabadhiinna arrinteeda aniga waxba kama ogi laakiin waa baadigoobaya balse gabadheeda maya sidaas maahan sidaas looma baahna afartan derbi ma loo baahna in uu hadalka dhaafo macnihiga annaga inuu dhaafo looma baahna intaan gabadhiinna maqnaashaheeda la ogaan dunida laga ogaan waa inaan helnaa annaga muhiimaddana waa intaas aawo gabadhayda adiga marka hore isdeji malwo gabadhaada waa raadinaynaa soo baxa anigii soo raaca hawshaad wadaya taliya dhaqsaa buxuusaya dadkan su'aalo ma weydiinaysid miya maxaa dhacay su'aal ah ma loo baahna ina mari nakeen taliya arrinka dacwadoodana maxaad ka leedahay dacwo maa ka qortay maya fayl maa ka diyaarisay ha ku sheegin nicdaaduna waa tan yaa looskana anaa kugu dhamaystira waa iga farxisay waa mahadsantahay idinka gaari maa wadataan haa halkaasuu yeelaa kiina soo raaca waye hallo aryaan dadkoo dhan ma joogaanna ii sheeg waaye adiga ma la hadashana wax muu sheegtay wax kasta u sheeg waalidiinteeda ayaa ii yimideen waxaan kaa rabaa saaxiibkeed iyo ninkeeda iyo ninka kale arrinkan wax kama ogayno asiga inaad ii keento oo aad ii casuubto waya taliya arrinta iigu muhiimsanaa waxay tahay telefoonnadooda sawirradooda masajyada ayaga ay wadaageen waxyaabahaasoo idil in aad ii soo hubiso adiga ayaan kaaga baahanaa hawshaas in aad ii qabato diyaar xaadir hal mid kalena waan kuu sheegaa kiiskan kiis adag waayo waxaan loo baahayaa in aan ka taxadirno annaga oo keliya inaan ka howlgalna loo baahaya mana rabo qof kale inay soo guda gasho diyaar adigaan kugu hadlaynaa hawshaas waya baybay taxadirkaaga badan ma shaqaysta cali hurdaaye maanta maxaa kugu dhacliya war xaaska ayaa iga tagtay weyna iga carruurta waxaan rabaa inaad soo tuugtuugo marka intaasaa ku mashquulsan marmarsiya bilowdaniya jaa maanta waa ku fasaxa laakiin shaqada isla markii waa inaad soo guda gashaa ayaa birito waa mahadsantaa taliya hawshaana soo dhammeeya kadib waan soo gudagalaa maalin kasta hal mar silima igu soo celiyeysaa iga daaya adig kafee kala kacsan ayaa rabaa waaya taliya mahadsanid haye adiga wax badana isla faaqidayni waxaan rabnay arrimo fara badan inaan kuu soo gudbino xogteennana adiga aan kula wadaagno waxyaabo fara badan ayaa diiradda saaran rabnaa qolalka korma taga oo ma soo hubiya taliya kofi asha haye taliya kafeegaaga wax ma u baahan tahay may taliya muu baahni good wada hadalkaaga adig taliya rajid iyo hooyadiisa waxay kugu sugayaan qolka 526 rajidna waa ninka mandhuuri wuxuuna ka shaqeeyay kambaniga fatage xog waxaana soo gaartay duhurtii markii uu qaday kadibna shaqadiisa uu aado wuxuu maqnaadaa ilaa iyo habeenkii mandhuuri guriga markii ka bixisana isagii iyo hooyadiisa waa isla joogeen anagana wax kasta waan u sheegnay isagana dib uu soo laabtay qofka xiga qolka 527 waxaa ku jira fishaal mandhuuri intaa la guursan labadooda xiriir ayay lahaayeen hal meelna way ka wada shaqayn jireen hal meelna waxbay ku barteen isaga kadib wuxuu furtay kambani cuntada بروفيلك فيسبوك يسنا وحا وصار سبر اساق وليا او كليا قبر كارتيال يرهدنا مو فرنت كليا انت لي ارين كان هنو اك هذا ما
hasee u leeyahay nagu ekaato annaga dad ayaan u baahanaa laakiin dad fara badan ma u baahna dad koobanaan u baahanaa oo weliba qaas annaga nooca san kale geedka markuu dhulka ka soo baxo orgaandi ayaa lagu magacaabaa marka uu meero dhalo oo caleemo yeeshana annaga magac kale ayaan u bixinaa sababta aan ugu bixinna maxay tahay hadalladeeda dhab ma u qaadatay ma waxaad u malaysa sigaarka rookiya inaan cabay nin wanaagsan ayaan ahay qofka ii malaysid mahaya hay ma soconaa qolka 528 waxaa jooga jawaab makoraan ninka la yidhaahdo wuxuuna ku noolaa gobol laakiin wuxuu ka soo jeedaa bangaloor maqaayado fara badan oo meeshaas ku leeyahay habeenii maalin wuu shaqaystaa night clubna waa leeyahay ninkan ganacsato fara badan oo xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo haddii aad xasuusato meel aan sanadka hore baaritaan ku samaynayna ayuu leeyahay hantila sarana waaye okay kafeega isbishalka run ahaantii nolosha ayuu u wanaagsan yahay haddii lay weydiiyo kafeega waxyaabaha laga sameeyo waxaa loo baahan yahay wakhtiga ugu wanaagsan in aad isticmaashid waxaa loo baahan yahay mirihiisa markii aad bunka heshid in aad shiiddo laakiin intaada shiidin ka hor waxaad ku qasban tahay si fiican in aad u qallajiso kadib le aad shiiddo haddii shaki oo ku galana waxaa loo baahan yahay qofka aad ka shakisa marka ugu horrayso gacanta inaad ku soo dhigto gacanta haddii aad ku dhigtana baaritaan in aad ku samayso markaas kadib waxaad ogaahaysaa waxyaabaha meeshaas kaaga qarsoon wayna kuu soo baxayaan runaanti tali waan dahnay ma baxnaa anigaa kuu sheegaya markaan dhammaysto aryan waalidiintii ma wacdan adiga adigii ku sugaya rajidii hooyadiisana qolkay ku jira yaaqe aabihiisana waddada ku soo jira war aniga waalidiintaas kaagalama hadlaayo ee mandhuuri waalidiinteeda ayaan ka hadlaya adiga feera wax akhbaar ma ayaysaa may mudan wax akhbaara kama haayo laakiin akhbaarta dib ayaa ka helaynaa waraadi doonaa fikradahayga wax ma kaaga sheegaa macnahayga aqoontayda haa taliye dunidan waxaa jiro laba qofood midna waa cadow midna waa saaxiib labadoodana ma kala caddayn kartid waxaa laga yaabaa saaxiibkaaga iyo cadowga inaa isku qaladid laakiin wakhtiga ayaa ku kala caddaynaya soo maha sama sax tan kale waxaad idhahay wasiirka arrimihiisa ha la ii soo ogaado ilaa ay haddana meeshaana iska fadhidaan maxay taas sidan taliya mandhuuri iyo joy arrimo ku saabsan soo ogaadaan taleefonkooda dabagal ku samaynay wuxuu yidhi nambarkan waa nambarka markaa dabagal ku sameynay adigaaba lehba waana nambarkii aan kugu aqinay taliya aabbeedna sidaas ayuu idhahay laakiin aniga cid isoo wacda haba yaraatee ma jirto lambarka ma iga hubiseen haa taliya ee nambarka ma hubin adi sana isu dhibay beelo wax yarkeeda ee nambarka taliya markaa dabagal ku sameynay hubabali ayaa lagu isticmaalaa good lambarka mudhuuri baaritaan ma ku samaysa maya taliya ilaa hadda isku dayan maxaad ugu samay weysane ku dhaqsada ayaan idin dhahay waxaan u baahanahay hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan in lagu qabto sameeya screenshot qaad ya hay taliye jooy waxaan rabaa dembiyadiisa intuusan qiran aniga gacanta in aan ku dhigo kadibna aan ku caddeeyo wax walbana aan bannaanka u soo saaro aniga meeshaan waxa ka dhacooya waa la yaabanahay ilaa haddana gabadheeda lama helin maxay ku dhacaysaa midaan ilaa hadda aniga waan fahmaa kolley wax lee qaldan laakiin isdeji arrintan waa la xalinayaa iga raali noqda marwo xaaladaada ka sheekee bal ma fiican tahay ahay gabadheeda arrimaheeda wax ma laga ogaadan qaraabadeeda ayaan wacnay waxna nooma sheegin ilaa haddana waanan laana waxban lama socono maxaa ka haysaa marka
marwa sidee tahay adiga hoteelka wax dhiba kuma qabto soo maa ma quraactana ii sheeg meeshaan waa dhib ku qabtaa igaraala noqo annaga meeshaan dalxiis uma imaanin mudan waxaa loo baahan yahay adiga inaad isdejiso neef wanaagsanna qaado gabadhaada sidaan filaayo asxaabteeda ayay la jirtaa maya asxaabteeda lama jirto waxaa lagu yidhi nin boolis ayaa badbaadiyey gabadhaada oo sarkaantii lagu magacaabo wuxuuna geeyey saldhigga taasna macquul miyaa marka alla hore fadhiiso sida hadday taa fadhiisa bal aan wada hadalnay warbixin dhammaystiran anigii ima siinin waxaana rabaa baaritaan wanaagsan inaan sameeyo ilaa ay haddana waxba kaama haayo fadhiisa bal annaga guriga ayaan joognay wax yar sug gabadheeda anigaa kugu geena maduuri ayaa ku rabto waayna murugsan tahay iyada ninkayga hooy may maqshaa haa maxaa dhaca gabadheeda aabba anaa kuu sheegaya wixii dhacay laakiin waa markaan kulanno kadib hadda waxaan rabaa meesha inaan ka soo tago xaggee joogtaa adiga ma xume ranjiid ayaan rabaa in allah fishaal ayaan la joogaa waa kum saaxiibkay waa wiilkaas la shaqayn jirnay hore waa kula kulansiiyey aabbo waddada boqolaad ayay degan yihiin waalidiintiisa ma fahamtee waayihii hadda asiga miyaa la joogtaan aabba meel kafateeriya ah ayaan joogaa haddeer gurigaasna waan ka soo tegey mana raba dib inaan ugu laabto waa ku bari ahaa igu celina aabbo waayaha waan ku fahma gabadheeda waxbaa ka walwalin asiga taleefonka igu dhiib fishaal maxaan u sheegaa marka waayani aabbaha keembaleekh aabbaabaa soo hadal haa wiilkayga aad iyo aad u maasantaha maadaama gabadheeda aad ka taxadirto gabadhaada way soo wacday halkan ayadoo fadhidan u imid sidaan dareemayna baraballeen ayaaba ka muuqda gabadha mana aqaan wax jiro gabadhaadana waa taqaanaa inay madax adag tahay anigana shaqo ayaan ku mashquulsanahay waayaha wiilkayga dhibaato male waan ku fahmi karaa waa ku baryaa barnaamijkan iga bixi aniga ma sii wadi kara barnaamijkan waxayna ku wacan tahay gabadhaada hotel deg inaad dhahdo oo hadda maxay kula tahay wiilkaygiiyo gabadheeda in aan ku aaminahay hotel taas waa macquul maaha waxaan laga yaabaa nafteeda inay wax gaarsiiso adeer hadalkayga gafuurka muu kaaga dhacoayaa wiilkaygii hal mid ii sameeye waxaan rabaa gabadheeda inaad bangaloor iigu keento aniga ma samayn karo waa ogtaa in aan fimil leeyahay fimilkaygaan rabaa in aan aado tan kale qof u soo dirso intay qofkaas kaaga imaanaysa asxaab maxaa kuu samey waa kula sii joogaa laakiin wax kale ma samayn karo gabadhaadana ma la joogi kara aniga dhibaato ayay igu tahay fimilkayga ii baan xaggooda ayaan aadi lahayd dadkaas inaan garab siiyana waa ku qasbanaa waa ku barya gidaa marka arrinkaan mana samayn kara aniga ashraayg lokeeshinkan kuu soo diraa aniga habeenkaas waxaan wada hadalnay fishaal asigana wuxuu ugu yidhi aniga safar ayaan geli rabaa ma la joogi kari kadib aniga go'aan ayaan gaaray waxaana wacay ninka joo lagu magacaabo si uu garab ii siiyo aniga asigana bangaloor ayaan isku naqiinay waxaan ka wada shaqayn jirnay wasaaradda gaadiidka wasaaradda gaadiidka ahaa saaxiibkii joo xilligaasna wuxuu igu dhaha aniga wasiirka ayaan aqaanaa wax walbana anigaa garab kugu siinaayo gabadhaada waa la raadinaya kadibna saldhigga whitefield u dhow ayaa la geynayaa meesha igu imow anigana saas ayaan meesha ku tegey inuu yaqaano miyuu kuu sheegay haa sidaas oo ii sheegay wuxuuna yidhi gabadhaada sarkaantii ayaan ku wareejinayaa sawiradeedana u dirayaa lokeeshinkan anigaa siinaya sidee ku caddayn kartaa marka gabadhaada shirkaan inuu kaxeeyeen isbitoor shirkaan fishaal ayaa ii sheegay wax walbana asigaa ii caddeeyey yaa kaloo gabadheeda ka xii karo kolley aniga maahan cid kale ayaa laga yaabaa in ay gabadhaada kaxaysay laakiin gabadhaada iyo ninkeeda xiriirka ka dhexeeyey mid wanaagsan miyuu ah mase xoogaa qallaasa ayaa jirta maadaamaad ii weyddiisay gabadheeda iyo ninka qabo xiriirkooda kolley aniga uma malaynaa inuu wanaagsan yahay sababtoo ah dhallinyarada hadda jirto wax walbo ayaa ka imaan karo markii lays guursado waxaa bilaabanayso isfahmi darro shaki maseer fara badan xaaladdana waa kirmaysaa fishaal yuu yaana fishaal waa saaxiibkeed bravo waxba ha ka welwelin cid ma jirta aniga booskayga buuxin karta gabadhaadan waxaan rajaynaa inay wanaagsan tahay tali waad u jeedaa soomaasiisii kaamirada waddada oo keliya ayaa shaqaynaya kuwa kaleetana markii aan barbaarnay
waxay ku jeedeen waddada wax kaloo shaqaynaya anaga ma aanan arkin wax raadana ilma maya ma loo baahna CC kaamirada in la baaro sababtoo ah ma raba arrinkan in qof kale ay ogaato wasiirka aan diidanahay in uu ku lug yeesho mana doonayo wasiirka arrinkan inuu ku lug yeesho maxaa kaloo haysaa CC kaamirada ATM-ka waa aaday u fogtaa anagana waxbaan ka arki weyne sababtaa indhaha nagu yar fiidiyoogii darban halkan ku jooji muuqaalkaas kale i tusi bal meeshaan ku jooji wax yar ii soo dhaweey macnihii zoom ii soo dheh bravo tali waxaa ka shakisa maad aragtay baaritaan dheeri ma ku sameeya ii sheeg balgaariga maya waxaan ka shakiyey maarkin mandhuuri moobeelkeeda akhbaar ma ka heshana maxaa akhbaar ka helnaa taliya taleefankeeda waa uu dansan yahay baaritaan dheeriina kuma aanan samayn wax kasta oo aan sameyno ibra noo soo baxaysa maxay dhahday baaritaan dheeri markaan sii samayna lagshmaa qof la dhahaya nambarkaas isticmaali jira taliya welina baad iga wadnaa taliya hagaag arrimahan caddan yar ayaan ka heli karnaa marka lambarkaas qofka lahaa ii soo baar saldhigyadoo dhanna waad wargelinaysaa lambarkaas xaadir haddana kafay ii dalab ranjid qolkee geysana ii sheeg يا أخي أديك مي فهم اسمها هذا مشغول وكبريا مركز يصوع تمام wax qaldan oo kaliya taa ayay ka sheegaysay taasina mid la qaadan karo ma hadde soo maaha haa waa sax هلو 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 راجو هلو. راجو كم مخلو أوكي أنا قاعد كوسو علنا كان هوتيل كان وهوتيل نوعية جرينتي إياه كدر بدل هذا ليه مكيني أيك هالي بورا مية شاه كدونن إيش شيء إلى عدم فهمني كهال أديك ياته يا ويترك إنك عافمات قبل الصدوق وجانا يا أسبوع عرشاه يا قضية البلد والله كان ألكل وكدر سكدي من وكوح نصدي مقعيقو وإسبطور السريكان إسكبرو إيران قلت ينقلي إيران الخيا هذا مبانتا مكودونا ما لو بهنس كداف مكودونا يا قيا ما وريا إن إزدج سوح كاغو نكسن مال هديك لسوما حبسي دون قد غايا هذا الكي فان إزدج مروي يقرها لنقو هذيك إزدج قرمي كودن بيس حاسكا من دورينا لهذا الشنا مركي قري إيه كتجيسي أنا وحن كو فكري إني سولابنس لكن ما بقى سولابن أنا عن سده أصحاب تيتا أي رجوك تلقين ناقتص ناق والون واه السولابتو أما بقى سولابن لكن بوليس كاوحويا شرعي جيس إن أوبارتان سمايو قف كتوغان أو قعنت كسور يقول له منايو حقنا ووليه بوليس كاوغو وحي آتبا ملان والرادينايا قعنتنا annaga ayaa ku soo dhigayna iska dhaaf يا أخي أنا نين كذا يعني بارتان كان محاكينا baaritaanka sidiisa bannaan sharci ayuu leeyahay taas moogta adiga ninkii naagta wax walba ha ka dhexeeyaan waxaa loo baahan yahay kan maqan maahayna kan joogo in la waraysto adiga taas moogtaa sababtoo ah waxaa jira ballamo ka dhexeeya ninka iyo naagtiisa baaritaan in lagu sameeyana waa loo baahan yahay laakiin aabeed wuxuu ii sheegay fishaal inaad joogtay asiga ma wareysatid asigana waan wareysanayaa idinkana waa idin wareysanaa laakiin hadda idinkaa ii dhow soo maa ها لكن قفتاس وقفت هذاك من لا ياوي إنه وحسو جاران هذيك هدي أتبيح أنا حتى وأنا سكبيح لهن إلين أنا شرعيا لنا هاي نفسح مركا ويقعد سكبح الشر هدي على هذا هذيك أيوكو جاريه أنا وحنك فسحة أو كلية مركي أنا واحد ماشان كجر أن أقعد مهم جدا وأنت سو كلية هذيك هسكو ضاهين مركا هوش هدي جب جبي هوش هذا كو جب جبي نايا أنا كنا وأنت سو كلية كلية وحا أكتين إيشيغا يا أخي أنا وحن أقاهي ملهن قرقانا قضوا كلية وإما هذي anigu inanteer waaban la yaabanahay cunto karis habarteeday ka tama baranaysaan ku yidhi maalin walba cusbo la'aan wey cusbada ma korkaan kaga daraynaa markaasan yeelnaa إن حقا عصبنا أوكي هاي horta ma ogtahay haari inay uur leedahay yacni
saaxiibka xaaskiisa ayaan ka hadlayaa guur ahaana iyadu way idinka dambeeyeen idinka ayaa guur ka horreeyey yaaqi taas maa wax weyn ah uurkooda intaysan waalidiintooda u sheegin ka hor facebook ayayba soo dhigeen yaaqi waxaas naga dhaafa hey hadalkaa ku celindaa haye hooy ii wad sheekada xaggee noo maraysa kadib maxaa dhacay ii sheekee hooy inaan dhammaystaan rabaa dartaaya meeshaan u fadhiyahay facebooka hadduu soo dhigo taasi ma dhibaatay leeday muhiimaddu waa farxadda oo keliyaataa hadda adiga ma waxaa aaminsantahay farxad inaadan haysan war dhegaysa adaan kula hadlayaa intaasna waa isqabtiin ilmo maydaan dhalin anigu ilmaan ayay u noqdo ayaan doonayaa hadday saas tahay oo aad ilmo jeceshahay halkan cunug maxaa u dhashay mid labaad iyo saddexaad maxaa u raadimaysa madu hooy micnaheeda sidaas mayn ka raali noqo adigani dhaqso raali garay dhaqsee maxaad sugaysaa madu haddii aad doonayso raashinka inaad soo cunto hooyo waa inaad raaligelisaa sababta aniga mar walba aan u raaligelinaya maxay tahay ma taqaana miya ayada qaabka wax loo raaligeliyo inankayga balukaadii anigaa mudan inaan raaligeliyey iyada iga jooji maalan yacniga iyo suuraha wiilkaagaa weji uga raadsanaysa waxyaabaha aad ka hadlaysa waana fahmi karaa intaan ha ku ekaato arrintaa ma sii wadi kara yaaqi dulqaadkaa iga dhammayseen yaaqi akhtu shiis mulaqayga xaggaad u socotaa meeshaan nabad ma u jirto anigu waan raba inaan celiyo laakiin maxaan sameeyaa waa xanaaqsanaa kadibna dhowr jeer ayaan wacay telefoonka ii qawi weyse adigana fursad ayaad u aragtay inay teleefonkaa qawi weyse micnaha waa maxay macnahayga inay kaa tagto ayaaba rabta soo maahan dibna ay kugu soo laaban soo sax maaha xataa hal mar ma aadan wicin 8 saac markii la gaaray kadib xaaskaaga mase teleefonka laga waca kaaga maba ahaanbo macnahayga mid kale miyuu ahay teleefonka laga waca xaaskaaga tan kale صدقاga iyo saaxiibka oo kaliya ayaa telefoonkaaga soo waceen markii laga reebo fariimaha xaaskaaga ama jacaylkaaga qorana waxa loo yiri hashageel hood ka sareeyon guriyesata wixii hoos u yaal hamigeeda masi nigaa khabaabay anigaa hungoobay waxabaarana iheli horhorkaan heen u haystee horhorkaan heen u haystee heestan adiga ayay kugu saabsan tahay ma ka heshana macnahayga aniga ma qurxoonahay sideen iskuul ekaa maamada bannaanka haddii aan isaga bixin ka wara labadeena isku yerno arrintan waa arrin ii qaasa haddana waxaan ku qasbanahay abokaatiyga inaan wacdo hadalkaaga waa sax si qurux badanna waad u hadashay sharcina waad u leedahay iyo xaq laakiin saldhigga booliiska ayaan tegaynaa xaaskayga ayaa iga maqan dacwaha ayaa laga qoraya anigana waxaan qorayaa qodobada sharciga saldhigga ku qoran waxaana rabaa markaas in aan wax walba ogaanno maamadana gabadha inay gumayso jirta ayaan ku qoraynaa annagana sidaas ayaan ku nasanaynaa dembigana waaba iska soo saarmaa soo maa halo tv-ga iyo ballan warbaahintaa rabaa inaan la hadlay xagga dhiga ayaan ku idhi ma taqaanid dab ayaad faraha la gelaysaa ururka haweenka madaxdooda ayaan ahay naagta madhuuri lagu sheegay iyo ninkaasa arrintan ka dambeeya magacaygana waxay doonayeen inay ku ceebeeyaan taasina midaan yeelaya maaha mana raba arrintan inay dhacdo inankaygana mabay dhaqaalayn jirin naagtaasi soo bax meesha waan iskaga tegay shaafro isdeji iga joojiye qof kasta xaqiiqadu waa uu ogyahay bas hooy tartiib isdeji fariiso halkan fariiso haa tartiib deganaan horta aniga istaaga waa aan ku daalay waxaana jeclahay markaan daalo in aan jiifto wax qolkan waa qol aad iyo aad u qurux badan runaanti ninka markuu guursanaya xaaskiisa ballan ayuu ka qaadayaa ballantina waa uu ka baxaa marka runta haddii aan idiin sheego gabadhaas gabar xun ma ahayn ee idinka ayaa ka dhigay haja war maxaad ku hadashay kumana fahmine war muxuu ka hadlay inankaygu ilaa imika maad afgaratay ninkan aniga maxaan ku ogahay wuxuu ku hadlaa dad jahannamo u socda ayaad u egtihiin maamadanna jahannamo inay u socotay ayadana u egtahay ilaa hadda kuma fahmin waxaad ku hadlaysid I don't know what you talking about aniga ayaa ku fahansiinayo sharaa'ig taas waxaa ka horrayso
rabana in aan ku weydiiyo xalay gurigaaga meeqa saac ayaa tagtay koley aniga ma xasuusto laakiin 8 saac bar ayay ahaydaan u malaynaa laakiin shirka ilaa 9 saac ayuu socday hadduu socdana shirka kadib anaga bannaanka ayaan go'aan ku gaarnay adiga iyo minisha bannaanka ayaad ku dhammaysteen arrimihiin sheekadaas sheeki ingiliis miya aniga dhakac andili dhuumasho andili ma dhilaysin macnaha sheekadaas meyno warniyo dhegeys wax walba waa samayso aniga waan ka dharagsanahay run ahaanti waxa iga maqan habeeraatee ma jiraan xaaskaagaa kaa maqan gabar kalaad soo kaxaysatay waqti wanaagsan aad la qaadanaysaa waxaad doonta miyaad ii sheegaysaa marka makaa qaadanaa ani marka macquul ma noqonay run ahaanta adiga xadkaaga ayaad soo gudbaysaa ma waxay kul tahay maduu inaan wax ku sameeyey askari noocaga oo kale weligayga ma aanan arkin sida tv oo kale ayaad noo waraysanaysaa maxaa dhacay xaaji tartiib sheeko hore u dhacda ayaan rabaa inaan kaaga sheekeeyo sheekadanna waxay ku saabsan tahay fotograafiste ganacsadana waa uu ahaa cilmina waa uu lahaa laba shay ayaa ilaahay isugu dara ninkaas hanti iyo aqoon nolol fiicanna waa uu ku noolaa run ahaanti waxyaabo fara badanoo u qarsanna waa ay jireen si waxyaabahaas u qarsoon aan loo ogaan ayuu wuxuu u guursaday gabar masaakiina ayadana maba ogeen waxyaabaha asiga u qarsan muddo ayay isqabeen arrimihiisana wuu isku dhex watay gabadhana ma aysan ogeen laakiin ugu dambayn waa la isdagaalay wax walbana waa la ogaaday gabadhina wax walba markay ogaatay ninka asiga waa ay isaga tagtay asigana inay isaga tagta ayaaba dan ugu jirta soo maaha kadibna wuxuu isku dayay xaaskiisa markay ogaatay in uu dilo qoorta ayuuna ka gooy waa uu dhameeyey si fotografistaha dhimashadeeda gabadhaas uu deganaan ugu helo adigana indhahaaga waxaa iiga muuqato nooca adiga aad tahay inaadan qarin karin wax walbana indhahaaga ayaan uga jeedaa si aan garab kuu siiya labadeena gooni waa inaan u sheekaysanaa sababtoo ah ninka ragga ayaa fahmi kara naagta oo keliya ayaa fahmi karta aniga adigana waxaan nahay laba qofood oo raga inaan isfahnana waa macquul si labadeenna isku fahna marka qalbiyadeenna waa in aan isku furnaa labadeennaba waxaan ku dhahay qalbiyadeenna macnahayga qalbiyadeenna aan isku furna labadeenna waan isfahmaynaa kal adiga maxaad ku hadlaysaa waa ku sideen kayda iska daa anigaa ku filan hooyo asiga ayaa igu filan iska daa hooyadaa darteeda ku fako fanbroch.com lashmanaa mahan ma joogtaa haa taliya xogta ku saabsanay nambarkii lagu isticmaalay hubali ayaan helnay wuxuu noogu dhumay 3 sano ka hor meesha la yidhaahdo bangaloor iyadana maysan u tegin booliska dacwana uma aysan gudbin xogtoo idin waa intaas taas macnaheedu waxay tahay qofka soo wacay lambarkaas in aanan la ogaanin sax lama ogaanin taliya laakiin ilaa haddeeta anaga baaritaan aan wadnaa fadhiis okay taliya kafeega cabi mahadsanid waraysiga marka hore ha dhammaado ninkan sheekadiisa waan ka gudbaynaa diyaar waa laakiin registerka markii la helo kadib leemayno mani sheekadiisa ayaan gudbaynaa waxaa laga yaabaa sheekadaas in ay wax nooga soo baxaan 8 saac markay ahayd ee hotel ka soo baxeen arrinkaasna waxaa ii sheegay staafkii hotelka nambarka joo haddii aan fiirino qofkaana fariin u soo diray si fiican ila fiiri eeg bal yaabaa qofkan yoo noqon karaa yaabaa ii sheeg baaday هاي تلي حرتيدا هاي نعم ستفلس ما يزدج هذيك وحباك هاي cabitaankii ugu dambeeyey oo kala kacsanna waad cabaysaa ku dhahay caado waxsaas uweyd ma aha jawi degan le iska dhammaanayan wax walba tali runtii aniga waxba ma samaynin
waxaan la socda haba yaraatee ma jirto xitaa aniga murug haddii ay hayso cid i dareemaysa ma jirto teeda kale aniga markaan u imaado keliya ayaan ogaaday wax walba waxaan isku dayay in aan garab siiyo waa intaasoo keliya haddaadan jeclayn gabadha maxaad ula kulantan ii sheeg tali ayada ayaa isoo wacday run ahaantii codkeeda waxaan ka dareemaa murugo iyo cabsi garabna way iga baahneed markaan la kulmay kadib ayaan ogaaday in ay reerkooda ka soo tagtay kabala farasaan noqotumayno macnaha garab ayaa siinaysa gabadha tali aniga waxba ma ogi haddii aad aaminin xitaa waa ku dhaaranayaa balse ayada ayaa isoo wacday waxayna igu tiri nolosha aniga dhisan kuma qanacsanin ayada run ahaantii gurigeeda xornimo kuma haysanin ninkeedana ixtiraam kuma haysan reerkeedana waa ay ka fogaayeen asxaab ma lahayn waalidiinteedana uma dhoweyn waxay samaysa ayaa leed ayada dhanbo istareessa ku furnaa runtii gabadha gabar wax barata ayay ahayd waxyaabahaasna way u dulqaadan weyse kaan anu waama yaabe fuqa maxaa la taagaysa hadalkayga ma hadal qaldan ahaana maya hadalkaaga ma qaldanayn aniga iyo ranjidna arrintan horaan oga wada hadalnay soo ma rabta inaan canug dhalno waa dhalaynaa dhib malaa wax walbana way hagaagayaan tartiib adi na inankayga arrintan igama hortaagna ee adigaaba diidaya ilmayska daya xabad baada xitaa inaad ii dhasho anuga uma baahna in aabba loo noqdo oo keliya adigaba middaas si fiican aa ogtaha u malaynaa allah ulajeeddadaadu maxay tahay inankayga aabba fiican maaha miya na aabbaha adduunka jooga kugu wanaagsan weeye inankaygu aabbaha ugu wanaagsan baa tiri aab wanaagsan in la noqdo waxaa ka horaysa nin wanaagsan in la noqdo oo raga waa fahantaa umalaynaa iimaanka lagaa qaad inankayga ragnimadiisi maabad sidan u yeesaysaa gabdhaha daba orday inankayga kun way dhaafeenba dabcan haa way daba ordi karaan laakiin gurkiisa diyaar ma u ahayn ma weydiisayna war meeqaa brofaylkiisa waxa uu soo dhigaba lagu qoslaaya ma taqaanaa aniga xataa markaan guurkiisa aqbalaya ma ogeyn wiilkaaga laakiin hooya adiga wiilkaaga waa ogtahay maaha yaaqinaga aamus waadiin barya waa iga codsi maya ma aamusayo waqtiga runtaa aqbal laheedaa la taagan yahay na ma aamusaysmiya saqajaamadii kaale sidoo aamus anigaa ku baraayo fishaal aniga gurigaas inaan ku laabto ma rabo adigana reerkaas aqoon uma lihid haddii aan noqdo ama way idilaayaan amaba aniga ayaa isdilaaya adiga dadka kale maa la wadaagta arrintan iska daa maalaa aniga inaad ku hadlayso waxaa loo baahan yahay arrintan dadka guriga u waaweyn inaad la wadaagto yaaqe aniga ma raba arrimahayga magaaladan in laga ogaado sidaa darteedaan kaligaa kuula wadaagay taas inaad samayso maxaa kuu diidaya oo reerkaaga wax walba ugu sharxi laadahay aniga ayaa garab ku siinayo maxaa ka hadlaysan yaaqe arrin sidaa u malaynayso uma fududa dadkaasna way ogyihiin annaga inay dhibaato naga dhexayso mideeda kale adigaba waa ogtaha ninkaas hooyaday ayuu qabaa aabbahayga dhabtaa maaha anoo 6 jira ayay hooyaday isguursadeen dhibaatooyin fara badanna waa uu ku hay mar walbana wuu handidaa wuuna ku qaylin jiray dhowr jeeraan hooyaday dhaha hooyo guurkan waa inaad burburisaa laakiin ayada way iga diido diyaarna waxay u noqotay ninkaas dhibkiisa in ay kula noolaato hadalkayga way aqbali weysay wax walba oo ku samaynayna way u dulqaadanaysay ma raba aniga waxaas inaan sameeyo noloshaan aniga ay qusaysaa labadeenna maxaan u midoobi la'nahay sababta naga hortaagan ma ii sheegi kartaa anigii iyo adiga haa igu kaftamaysaan u malaynaa ma ilowda kritika inaan faraanta u geliyey oo weliba 2 bilood kadib aan isgurso rabno hambalyaan ku leeyahay laakiin mar hor maxay igu sheegi weysayna aniga waa rabay in aan kula wadaago balse waa ii suurtageli weyse waan ilooban oo maskaxdayda ayay ka baxday
laga yaabaa inaad iga saxan tahay gurigaygaan ku laabanaa hadda halo hooyo gabadheeda see taha adiga waan fiicanahay hooyo maxaa ku dhaca codkaaga murugaaba ka muuqatee hooyo inaan kuu imaado ayaan rabaa wax ii sheeg gabadheeda maxaa dhacay hooyo ma inaan muddo kula joogaa iska jeclaysa dhib maa jira gabadheeda ranjiid maa kula socdo maya hooyo aniga keligayaa ahay cidna ilama socoto goorma imaanaysa taleefonkii dhib maxaa sidaas u qaylina taleefonkii dhib yaa war ma raba inaan kula hadlay hooyada igu dhiib telefoonka waa ii dhiibaysa maxaa taa dhibka jiraysa ma hadalkaaga inaan wax kuu sheegana diyaar uma ahi ma rabi inaan ku dhagaysto hooyada dhiib telefoonka familkeena sharaftiisa miyaad rabtaa inaa ceebeyso dhib oo dhan hadduu dhaca adiga ka imaan familka adaa lagu dhahaa dhibka ku haysta muxuu yahay adaa dhib sameey ka yilimay inaad garaafaysa telefoonka la hadal asaga yaa waa ninkaas yuu yahay halow halow hol la hadal dhaqso waa kuma aabahey waay ma raba gurigiisa xitaa inaan tago waryaa yaa tahay ii sheeg familkayga afaariisa markaan faraha la soo galayso waxaad ku hadlaysa ma la socotaan adiga waan la socdaa laakiin adiga yaa awood kuu siiyey ma dhibaata rabtaa inaan loo adeer waxba iswaalin war dhibka iga daaya taleefonka igu dhiib isla hadeertaan waaya tartiib laak adiga isdeji maxaa la qaylinaysaan naga daa odagaa waalnay la hadalkaale hoo qabso waaba jinooley maduuli maxaan sameeyaa aniga hadda anig inteenaada adiga la ii sheeg maxaan se sameeya ma nolosha maxay ii taraysaa maduuli isdeji dadka ayaana arkaya tartiib aabbaaga nambarkiisa isii anigaa la hadlaya wax walba fahansiinayo sida wax u jiraan waan u sheegaya adiga murugtoo keliya iska daa okay waaya nakeen xoogaa isoo kala kicino micnaha suuligi orate iwad sheekada haddana iwad intaasoo keliya waay maxaan kuu wadaane kadibna guriga ayaad geysa soo maahan wax walbana waa aad xalisay sheekaana meesha ka dhacda wax la xaliyeyna ma laha waxaan u malaynaa inaad heshay fursad aad ku qaniimaysato daroogadan innaba caadi maaya xaggee taalaa ii sheeg waxaan ku dhaha xaggee ku qarisay adigaan kula hadlaa ii sheeg soo saarura isku video soo bixi ugu dhac ii dhiib waxaad haysa soo daa yaa waxaan ku dhaha waxaa haysa soo daa maxaa ku hela adiga la baqanay waan baashaalayna oo keliya cool down baashaal ii dhiman khatarata adiga farahaba ka ducaysantaabe beela hadda ii wad sheekada ii wad may ka sheekee sheekada ku aawad kadib markaad isla hadasheen ma kala tagteen mase waa israacdeen ayada way qeylinaysa run ahaantii meeshan waa la buuxay meesha kafeteriga ayaa ee dadka idinle way la yaabanaayeen aniga waan kaxeeyey hotel ayaan geeyey kadibna aabbaheeda ayaan wacay waxaana dhahay gabadhaada hoteelka ayay ku sugan tahay intaas oo keliya ayaan ogaay wax kaleaan ogaay male run ahaantii aad ayaan ugu walwalaayay markaas kadib aniga waan fikiray waxaana ku fikiray
saaxiibtay in ay qalad ii fahanto maxaa yeelay arrimaha maduuri ayada lama soconin anigana uma sheegin kadibna waxaan go'aansaday gacalsideeda inaan koolgareeyo oon la wadaago arrimaha maduuri laakiin ayada waxay tiri asxaabteyda ayaan la joogaa cashaanna u wada qaadanaynaa iyo waqti sheekada sida adiga aad rabtay oo keliya ayay u dhacday soo ma sidaas ma aniga wax isdhaa maduuri waa la kaxaynayaa goormaa guriga u kaxaysa marka adiga abeere waxay ahayd 10 ilaa 15 laakiin aniga ma hubo runtii kadib aabeeda ayaa isoo wacay waxaana sii adreeskii waxaana isdhahayay odayga gabadha qof ayuu u soo diraa manduuri askarta intaysa kaxeen ka hor labadiina qolka maxaad ka samaynayseen ii sheeg waxaas waa qalad aniga wax uma samayna runta haddii aan kaala hadlo adiga ayaad u malaynaysa maaha horyaa iga daa beentaya keliya waxaad ii sheegtaa xaqiiqada waxa ay tahay habeenkaas maxaa dhacay saas markaad guriga ugu tagteen adiga iyo manduuri hee waa isla degteen xariif dhala ayaad tahay run ahaantii adiga iyo ayada sheeka meel dhexe markay idiin maraysa gacalisadaa dalaq soo tiri dabadeed maxaa dhacay gacalisadaada sheekadaas markay aragta waa ay xanaaqday manduuri ayay u timid kadibna madaxa ayay wax ugu dhistay sidaas ayayba ku dhimatay manduur arrinta in la qarxiyo oo keliya ayaad ka cabsateen sheekadanna aan soo gebagabayna ayaad ku heshiiseen aan qarina waxan aqlilo saas waay sheekada sidaas mayano may waa wada hadlayna oo keliya sidaa sheegis waxa uma dhicin maduuri aabaaga ayaan la hadlay lokeeshinkana waan u diray asigaa imaanaya ku kaxeynaya gurigan ku geynaya maxaa xanaaqsantaa dhoola caddayno wejiga farxad arrinta bixitaankeeda ayaan ka wada hadlaynay ha iloobinya mise wiciisido mise ma isoo xiriirinaysid ya fishaal waa maxay waxaad samaynaysaa way dharbaxday madhuuri dhankeeda ayay aaday igaraana dhaqo waan baxaya naanaga dhex bax wax kale adoo samayn gabadh adoo la hadlaaya kuu timid wayna ku dharbaxda xaaskaaga soo maamas wax kale ayaa iyeysaa may tale madhuuri ayaa iyada si fiican u taqiin sheeko kale ayaa meesha ka soo baxda madhuuri may siqiina xaaskaaga adiga leese hore iguma dhihin karti ka mandhuuri maba garanayso tale sidaa u malaynaysa maa sawirkeeda ayay aragtay ani iyadoo wada sawira weli wada jira labadiina sawiran beella waa keen sawirka tale fiideoga waa diladgarey war fiideo waa diladgarey maxaa waaye haddaatana footadan diladgareyaa dhehaysa adig nin waal maanta mise nin fiyo daanyeeryahow ma ii sheegay wixii jira mase ma ii sheegaysid ballan waxaan ku qaadaa xabsi dayn inaan kuga xukumo maya sheeg aniga waxba ma ogi waxba ma ogi makaa ilaahay runtii ii aamin waan ku dhaaranayaa waxba ma ogi fiideoga waan cunay war rag war loo sheegi karo noo sheegaya maanta dhan waa cuna lahay dhin waaba ku aaminaba ka soo qaad sababta kugu kaliftay inaad dalad garayso maxay tahay ii sheeg tali isdeji wax kale maan aniga runta ayaan kaala hadlayaa labadeena hal mar oo keliya ayaan u wada kulan sida xaqiiqada ay tahay balse qalad ayaa qalad mandhuuri markii aad is aragteen labadiina waad soo raacdeen waxaan ogaatay inay murugsan tahay kadibna waxaad isku dayday in aad ka faa'iidaysato maadaama ninkeeda uu yahay geey mandhuurina waxay rabtay adiga in ay kuu soo dhawaato kadibna adiga ayaa iska fogeeyey maadaama aad u sheegtay saaxiibaddaa inaad faraanta gelisay markii ay kaa diidda waxyaabihii adiga aad rabtana waxaad samaysay saaxiibada ayaad u yeeratay si wada jiraad ku kufsateen
kadibna waa aad disheen meedkeedana meel ayaad ka tuurteen kadibna aabeed ayaa telefoonkiisa garaacday waxaad u tiri gabadhaada isbatooraha ayaan kuugu wareejiya asigaana ammaankeeda sugaayo sheekada sidaas inay u dhacdo ayaan filaa doqonka sax maayna hal daqiiqo uf daqiiqa 1 minute sheekada fiidiyoga haddii aan u soo noqonno muuqaal qaab daran ayaad ka haysay waxaana isku dayday inaad ku rikaatayso mar allaala markaad u baahatidna aad u wacato weliba si qasab ah markii ay kuu timidna guriga waxaad samaysay sidaad u malaynaysa maaha qalad ayaad aaminsan tahay anigoo dembi gelin ayaad iska eedaynaysaa runta haddii aan kaala hadlo gabadhaas aniga garab oo keliya ayaan siinay aabeedna waan u wacay wax walbana waa sidaan kugu sheegay anigana waxaan rabay inaan daba raaco maduuri balse kelitii ayaa iga celisay fikir qaldan ayaad aaminsan tahay taliya aniga dembi ma lihi kadib waxaan arkay gabar askariid ayadoo la hadlayso gabar askariid may ahayd askariid ayayd gabadhaas balse dharka uniformka askarta ma wadan sideed ku ogaatay marka adiga waxaan ku ogaaday magaceedoo dhammaystiran ayay ugu wicisa maduuri maamimoon magaceeda ayay ugu wicisay gabadhaasna waxay dhehaysay isbitoora sarkaanti ayaan la socdaa aniga aabeed ayaan wacay wuxuuna idhaha aniga ayaa soo diray gabadheeda wax walban sidaas ayay u dhicin taliya waa soo socda markii aan soo laabto fiideoga yaanan kaa weynin dafariyo dafar kuleel hallow array baaritaanka waagi ma wadaa mise taliya ilaa hadda waan wadaa baaritaanka weliba si wanaagsan waxbaa ka baqin anigaa soo gabagabaynayo goordhow markaan soo gabagabaynayo tii ilaa iyo hadda aniga afkayga badar ma gelin gaajaay heeso naclaqluutaan duuf ayaa ku dhashay xanuunka igu siyaadoohayo kowdhe meed aqbaar hesho ila soo socodsii dhib ma lahan anigaa kula soo socodsiinayo wixii akhbaar aan helo iyo wixii u soo siyaado aniga ayaa u sheegaayo taliye inta uusan mandhuuri taleefankeeda dimin taalo bangaloor ku taalo ayaa signaalkeeda ugu dambeeyey aniga hore ayaan kuugu sheegay dareenkayga ayaa ii sheegayaan ku dhaha gabadhaas in aysan wax gaarin macquul maahan arrinkaanna aniga ayaa kaa og ifahan marka waalidiinteeda intaas wargeli si ay u farxaan waaya taliye irisay taliye iska daa aniga ayaa u tagaaya okey markaaga shaqadada kala qabsaday wax walba waa okey haye gabadhaada manduuna sidaan filaya dhibaata ma qabto xaaskayga telefoonkeeda markii ugu dambeysay bangaloor ayuu ka shidnaa asxaabtana baaritaan ayay wadaa dadaal fara badanna waan wadnaa saas miya waan guulaysanaynaa mahadsanid taliye dhibaata ma lahan wax walba waajib isaaran ayaan u sameeyey wax aad ila wadaagaysay labadiina miyaa jira maya waxba ma jiraan waxaan idin weydiinaya wax kale maahan kiiska feelkan aan ka sameeyey u malayn maayo baaritaanka inuu kusii jiraayo taliyaha iga sarreeya aniga laygu beddelayna ma u malaynayay si daacada kiiskan inuu uga shaqay doono macnahayga ma hubi asiga dhibaato male caadi waay waayaa mudane mahadsanid weligaa iima aadan sheegin manduu gabar adiga aa dhashay in aydan ahayn أكو عيل بظلنا هلو ها مضر الشركانت أيون باهنا يا أبي دحو سمروها ما أنت دون وصوص على الليلة إلا هدرت أنا مارك حسود أقصد نكاس وإماها تنكلوا حوشك واحد سوق إنه وزيرك صاحبك سيء إذا قف دنبيلة وصلنا هنا يس dambiile iga raali noqo mudane annaga iyo dambiilayaasha aragti wanaagsan ayaa noo dhexaysa runaanti mana sheegi karo askariga maalin walba biyaha in uu dhadhamiyo laakiin dambiilaha aragtida oo keliya ayaan ku garanaa haddii aan nahay annaga boolis si kasta oo u dhunto in haddaadan adiga ugu talagelin labadeena qaabkay halkan ugu kulannay ii sheeg ilaan qof walba shaqo gooni ayuu leeyahay howl goonina ugu qabsadaa kumanaan arrin ayaa jirta loo baahan yahay inaan aniga xaliyo waxaa ka mid ah arrinta cashuurta dambiilayaasha arrimahooda inaan ogaadana waan iska jeclahay ayada
aadna waxaan ugu faraxsanahay maadaama aniga sharafteeda heer sare maanta ay taagan tahay tan kale waxaan ku weydiinaya adiga asbaabta ah la kulankayga u dooratay maxay tahay ii sheeg oo hadda ayaan soo xasuustay ilaan waxaan ahay ninka ganeesh wasiirka ku xiriiriyey maadaama aniga garab ay weydiistay arrintaas haddii aad u baahan tahana wasiirka xitaa waad weydiin karta asiga ayaa wax walba kuu sheegaya exactly asiga ayaaba igu yidhi si gooniya arrinkan u xalli maadaama hotel qurux badan aad degan tahay go'aan waxaan ku gaaray arrinka inaan aniga xalliyo bal ka waran haddii aan cabitaan kuu iyo dalbo sheekada waayo waqtigaan kale muddo fara badan ayaan aniga sugayay hal laakiin tuugi aan wareysanaya haddiiba cabitaan aan lacbo maxaa yaal meesha eber ma hayno iga raalli noqo mudana iga raalli noqo xoogaa qalad ayaan galsoo maaha wax qaldanna waa aan kugu tilmaamay waxay ahaataba ka soco hal su'aal ayaan rabaa in aan ku weydiiyo isbuuci meeq jeera cabitaanka cabtaan ii sheeg aniga maba joojiiba cabitaanka maba joojisid miyaa beela sheekada haddeeba xiise sii yeelatay waxaan ku weydiinaya aabeed asigii maa ku dhahay wasiirka ii wacna ii sheeg maya asiga inuusan dayn waayo wasiirka aqoonna ma lahayn aniga ayuu isoo wacay markaasna waxaan joogay xafladda barfi barfi anigana waa saaxiibkay xafladda dhalashadiisa ayaan u dabaantay meesha ayaan dhammaanteena ku wada baashaaleen هذا باشا هي باشا هي عاوينا سعودي ها هلو مدن هلو ها جريش واي كما مقلة جوي جوي أنا قطع عدك ما مقلة واحد كده بين كوكس وعلنا يكادي هذا أها إن أرين أيان كوسا وعجوي قرب بوح أيان كاجا باهنا حالة سمو نكسب ها قبل إذا أي كوسا بسنتها أرنتان جوي وحين جوكتا هذا ملودو وايت فيل أصحابتي ضف كمد أي اللي جوكتا مركو حن ربعنا دي وايت فيل ميشن كمد وتاسو هي ذيك أوه ساسميا لكن هل بنت ينسمين كده قف صاحبك يا الله يا أسيق يا وضي هوتيل يوجينا مش أي عاوز ما ساس معها قبل أسنا مكا يلي صوبتها هو مدح عدكتا أيضا وحن ربع إن نفتاد مدن لكن سعادة وتمك هبين موجوه أنا جو حيلو وناكسن أصحابتي هذا مت كمدة مسا بوليس إن تقدر تسلق بوليس كأوجي كتبنا أنا قاعد تجا مش كسوك حسناي وحول بنو أي حال اسمه أوكي وين يقول لي متك الوحي اسم مثلا لمبر كده يسودر إيه أريما حكت هذا واتساب كيجني يقصدر إن وزيرك يا صاحبنا أنا أرنت ناسك يا دمين أصل هذايا أرنت كان قبل ولا هذا وما صنع صاحب أما يبغى نسكول لنا هنا أنت ملا يديك صوب هذه هلا مدن يورا أري قرمة سكبور كي مدلين هلا يا سوق قال لي إن أري ما كلمت الميسس وكجرين لكن ما كلمت أيام كوضع هذلنا هذا قرب أيام كاجبا هما محوي حوية إن مت صاحبك يا جرا إن قبل يسوي كم قلنا مركو حارب إن أسكري أدو ديرتين وقبل أسوي صوب صليقنا وجي كده من مش أبيض أو ماض وضد 5 إلى 6 هاورز أي جوكتا أرتا أنا صليق بوليس كأدي مكركولي لكن إسبتور سكشية اللي هلا سوق أداي سنة واحد استخدم هاي صليقنا جي وما صنطه هذا ما صنطه ولا إسكولية هلو وكذا هل كان يقول أكيد قال أنا ما كسوعين هدي الشركة تاعي أو حرمتس هذيك قبل سنة قفك سوعي وهذيك أوكلية إلا قفك أنت أنا قال ما هضلين عدك كسوعي عدك كل الله إذا جوج هذا الكبدن يا تنكله أنا قبل موسيقى هي ينكجري ما أنا فاهم كده عدك لهذا هاجاك أيوة تشكر وزيرك ميكوغا مرينا ضنيك سوعي اوكي بيلتا وحرب هل وحين دقا عاويسه مid saaxiibka iyo gabadhiisa ka maqan tahay waqti xaadirkan wuxuu ka sugan tahay wadada 5 ilaa 6 waxa raba inaan meeshaas aad ka soo wado waxa laga yaabaa qaraabadada inay meeshaas joogaan tan kale aabeed ayadoo kuma kalsoona arrinkaas laakiin anaga waxba nagama qoseeyo keliya waxaad samaynaysaa gabadhaas inaad meesha ka soo wado oo adigana saldhigga aad geyso taasaan kaa rabaa tan kale magacaaga ii sheeg اوكي هذا ينكون فاهم وهذا الشكل إن كان آمين يا مود هذه ورهذا هذيك يكون طالع وحول بان أوجه أنا جوان كوشيك وان كوشيك ثم إنه جنيش يسوي أريماس ويلسوي ذاك نكاس نقبل يسوي هذا ناي محيط وحيلات كل دين يصير هذه أنا حقيقة كوشيك هنا ولي ور ما يقول سيبدي سنة أم آمين أم آمين هذيك يكون طالع هرت ميدان كويديو نولش المح عبد كاجد جنيه يشيك مركز تورنت عتشكت نولش ويكون فلان الساعة دقيقة كستولي aniga waxaan u maleynayaa gabadhaas inay gurigeeda ku noqotay waayo dadka maaliyaalamka caqli ayaa ka batay si fududna ma isku dhiibayaan joy sheekadaada
sidaa le maa uga sheekaysaa war sheekada qabya loogama tago waa la dhammaystiraa markaad sheekada bilowdo sheekadana waxaad ka tagta mataqaanaa mootaay inaad ku soo darto ayaa loo baahnaa adiga mootay aqoon miyaad u leedahay ii sheeg weliba waxaana ku dhahay sida laba qofood oo dhashteen haddaa rabtan hadda waan kugu wici karaa kugu waxaan ii sheeg sidoo kale aniga xataa saaxiibba ayaan nahay waanu isku wanaagsannahay laakiin ha igu kallifi sujuudda in aan kaa qaado waca ninka wasiirkii adiga waxay idinka dhexeeyaan bala yaabanaya wel sidee gabar ugu daba dartay nin dadka daba galo iya taas qalad maheen war yaa qalad maheenoo baastariyo mudane gabdhaha sita waa gabdho ciyaaro ee ma ahan gabdho oo yani jirkooda ka ganacsada moona xaqiiqda ayaan kaagala hadlayaa si aad taajir u noqoto ayaad gabdho jirkooda ka ganacsato ciyaartooy ugu tilmaamaysaa miya hanji waraxaan amaan cunaaniyo dulqaadkaa iga dhammaanooya maadaama wasiirka saaxiibkiis aad tahay aad sidan igaga badbaadaysaa maahayn maba iga badbaadi lahayn haddii qof kale booskaaga oo ku jir lahay beella ayay igu ahaaleed bad ashi dantii naaboli war adi kale maxaad u samaysa waxyaabaha noocaan daqan dhar iska soo gashta ayuuna moodaa wax walba oo taa annaga waan ka dharagsannaha runaanti annagaa laakiin waxyaabaha aad suubihaysa dan ka lahayn war kaale adiga aniga maxaan kuula ekaada ii sheeg sharaxaadisii mudan aniga waan la socdaa inaad adiga askari tahay tan kale xaqiiqda aniga waan kuu sheegay mootaay ninka la dhahayna waa nin iska cadi wax dambi oo leeyahay malahan iyo aamin runta ka hadlaa hagaag sheekada bilaaw ayaanba ka dhigaynaa mandhuuri sawirkeeda markii aad aragto kadib maxaa dhacay taasaan rabaa inaa ogaaday waryaa hal fook ii dhiib hoo baashaan waaw qoftu way shidantee way kala kacsantay waryaa isku sheeg gabadhan aabbaheed ayaan aqoon u leeyahay saa u malaynaysa waa haddii saastaa mateo tagno matiya falkicinaaba qoftee waaw kaalis kaalig igu hadlay arrinkana sidaas ayuu u dhacay anigana sawirka si kaftan ah ayaan ugu diray asiga sawirkeeda iyo meesha joogtana waa u raacday soo maa ma laga yaabo gabadha asiga gacanteena uu ku dhigayna haa dabcan may ma sheegi kara aniga laakiin sheeko kalaa rabtay inaa ii sheegtay lambarkeeda iga soo wacday ma ay dhahdana haa lambarkeeda ayaa iga soo wacday waa been kale haddaba waryaa lambarkayga waa isa soo bixi telefoonkaaga wadansan yahay adigana ima soo wicin anigana kuma soo garaacin ee beenta taa ka keentay tali haddii aad been umalaynayso koolasha ugu dambeeya waad arkaysaa ka baar mobilkaaga taa hersugi halo tali dadkoo dhan waa loo hanjaboyaa nasiilan aanan lagu dhacday ay awokaateena u baahnayn noo keen dhimal anaa ku soo wacay waayahay tali marka annaga inaad baxrna gelisaa ugu talagasho soo maaha waxaasoo dhan maxaad u samaysana tan kale lambarka oo baaliyaa laga isticmaalaya lakishmaa qof la dhahan isticmaalaysa walkishmaa ah tali waxyaalahaas aniga waxba kama ogi lambarka haddii soo waca mataqaanaa ciddooyahana ma garan kartaa waan ka xumahay gabadha waa ay dhimatay maxaa dhahday meydkeeda ayaaba la helay waan ka xumahay aad ayaan uga xumahay haddiiba adiga iyo wasiirka iyo aabbaheedoo keliya gabadha aad ogeedeen arrimaheeda magaca qof ku qarabta yuu yahay ii sheeg oo gabadha meesha ka kaxeeyey kaasaan rabaa in aan ogaado waaba qofka geemka keliya isku xirxiray marka ii sheeg qofkaas haddii aan ogaado wax walba oo kee noqonaya haddii warbixinta mutay aad u gudbisay qofta ciyaarta qasay waa adayga keliya waxaa ii sheegtaa ganacsade meeqaa lagu siiyey macnihii meeqaad qaadatay intaas ii sheeg tali dhuuntiidan kugu dartay aamin laakiinse gabadha sidee ku dhimantayna ii sheeg tali xoogaa kadib aan kugu socda deegtan aabbayda sidee wejigaygu tusaa wax walboo ii sheegtay eber ayay ahaayeen anigana wakhtiga ayaad iga lumisay laakiin waan kaa sii tegaaya
hal mid ayaan ka hilmaamo laakiin manduuri waa inoo shaaya lisa badri ma dhiman weli arey sarkaantiyow aniga adiga dartahan howsha u wadaa anna ii shaqeeyo haysaa waxaad isku malaysay ninka ugu khatarsanoo saldhigiina jooga dad badan aa jiro diyaar u ah hawshan inay ii qabtaan marka meedaa la helaa la sheego haya oo gabara kuwa kalena waa ay jiraan ku ducayso madhuuri inaysan naqan haddii kale ninka kiiskan baaraya naqahaya dembiilaha ugu weynaay ee gacanta lagu dhigay isjiranku leeyahay waa kuu digoo haya geerkayga hawshaa gacanta ku haysan waxaad ogaataa howl yar inaysan ahayn taxadar marka tali laakiin gabadha sida aa umalaynaysid maahan telefoonkeeda marka ugu dambeeyey bangaloor bannaankeeda ayuu ka shidhnaa ilaa ay haddana inay nooshaan aaminsana waxa lagu sheegaa iska daa marka niyahow runta haddaan kuu sheego waa inii jebisay mugga hore waxaan ku haystay yar hawshaan ka soo baxaya laakiin kalsoonidayda waa ku ciyaartaa ku dhahay taliya waan ka xumahay kalsoonidaada inaan ku cayaaro laakiin waxaad ogaataa saaxiibkaa joy arrimahanna inuu lug ku leeyahay sheekadaanna asiga ayaaba qasay tan kale gabadha meeshuu aniga iiga soo diri lahay cid kale ayuu u diray macnahayga nin gabdhaha ka ganacsado jaraar ayuu gabadha u diray mana la rabin sidaas inuu sameeyo sheekadan asiga ayaaba qasay laakiin aniga waxay aataba waayo waxaad sheegi rabtaa geerkayga maxaad dhihi rabtaa gabadhaas la sheegay midkeeda ayaan soo fiirinaya inay ayada tahay in kale kadib ayaan kugu soo warcelinaa wixii akhbaar aan helo manduuri waalidiinteeda ballantaan ka qaadanaya inaan oofiyo ayaan rajaynayaa garab igu sii marka war meeshaan maxaa ka dhacaayana ilaa iyo hadda wax baaritaanna maba haystaan miya waa iska fadhidiin soo maa annagana magaaladoo idil ayaan ku soo wareegaynaa meesha shidaalka meed ayaa laga helaa layidhi ilaa iyo haddana wax caddayna gacanta kuma hayno siday u dhacda marka annagaa si qaldan wax u baaroon qofkuu yahay meedkaas anigaa soo ogaanaya irise taliya waalidiinta ayaad kaxaynaysaa meedka meeshuu yaalna waad geynaysaa soo tusi waxaa laga yaabaa inay aqoonstaan adigaan kugu halaynaa hawshaas waaya taliya dhaqsida ku dhaqso shidantiina buleshi بريتو لجوابته إن أنا هلا أبانا أوكي وياي تلي فو يا قصدو كل عدل meedka hala daboolo دي ما له دي كان صدق كل عيشك هذا كان رواينا كأوجد waxaan u malaynayaa daraagis qaldan in loo isticmaalay meedadka meesha laga helaan 4 ayay ahaayeen يا دنيا بارتان كلنا سبعي ولا قسمية ماشي ديل كده عتك سلقي راس ماشي كيالنا تك تليها حتى meesha dilka dhac waa subramayaan taliya ku-xigeenka saldhigaas ayaana gacanta ku haya kiiska arrin kalena waa jirtaa taliya waxaa jirta daraagisyaal kale in la isticmaalayo meeshana waa tegi kartaa balmi in la oofiyo keliya ayaa dhiman igaraalno inta karankiga waan dadaala aniga intan kale gabadhiina meedkeedaa la helay jirkeedana daroogaa laga helay adiga ayaa waxaa soo dhasuuba adiga ayaana dadkaas waxoo la hadlay
haddii aad dadkaas la hadli lahayn gabadheedu waxa ku dhacay maba ku dhici lahayn waxaasna adiga ayaa sabab u ah aamus hurya iyo awoodkiisii sidaan inaad ila hadasho gabadhaan dhala waxaan u qaba lahay oo kale ayaan kuu qabta adiga kadib waxaad rabtaa inaad igu abaalguddo boyfriend daroogiistaa iyo xafladaha inaad ka qayb gasho taasna waa qalad midiya miyaad igu ceebaynaysaa waxaad samaysay kuguma filna miya ma waxaad rabtaa inaad guriga ka cararto kadibna baastarka aad u tagto darooga isticmaasho waxyaabaas waa kugu qalad gabar ayaa taa guriga ku soo laaba waa yeelayaan aana sinlaan hay dhigin waxay dhahday ilaa ka dhinto gabadhaada jecel fara badan ayaa siinaya laakiin ilaa hadda wax jeceelaa siinaysa aniga kaama arko anigu waxaan la yaabanahay magaalada sidaan u weyn joy oo keliya ta maxaad uga dalbatay midda kale inantaada inta la kaxeeyo saldhigga booliska in la geeyo taana maxaad u codsatay taasaaba iga yaabisee maxaan kaloo sameylay aniga waddo kale ma haysanin waan ku saxnaa maxaa yeelay ninkeeda ayaan wacay telefoonkana wuu iga qaba waaye yusuliskii ayada hoosta uga jirtane garab waa uu sii waaye maxaan kaloo samayn lahay waa iska hadlaysaa xaaskayga adiga miigu kalsoonid miyaa haddiise gabadheeda ahayn waxay rabta uma samayn lahayn mana koolkooli lahayn balse kalsooni darada inaad iga qaaddo waa laga fiican aniga xaddaaf ayaan u jeclaa gabadhaada waxyaabaha halkan ka dhacayo iyo waxyaabihii aan soo arkay markaan isku fiirshay wax dhici kara maaha fidda dadkan ribood iiga qor waxaan rabaa kiiskan inaan soo gabagabeeyo subax intaan la gaarin subarmayaan ma raba in loo gudbiyo adigana kugu ogaba haa mid kale idinka hilmaamay inta arrintaa laga xalin lahay labadiinna meeshaana ka teginayaa sii jooga Okay. Traffic. Ay soo hadal. intali arrin yar ayaa igu soo siyaaday Ma meydka ii sheeg. gabadha qof ayaa dilay Haye. hadda marka maxaan samaynaa Ari cidda ka dambaysa aniga ma ogaatay. dadkoo dhan markii aan wareystay run ahaantii run ayay ii sheegeen laakiin saaxiibkaa joy ilaa ay hadda asiga ayaan ka shakisanaa cc kamerada markaan baaritaan ku suubiyeyna matoy gaarigiisa ayaaba gabadha lagu kaxeeyey kiiskan haddii la rab in la soo gabagabeeyeyna matoy waa in la soo xiraa matoy haddii la soo xirana kiiska annaga ayaaba soo gelayna magacyadeen aniga adiga iyo saaxiibkaa joy intaba waan soo gelaynaa ciil badana ma hawshaa sidaan isku beddeshay laakiin ha ilaabin he arrinkan inay ku lug leeyihiin qolo maafiya iyo daroogayaal laakiin taliya aniga inta karaankayga waa aan dadaalay waxaan isku dayay hawshan inaan keligii soo gabagabeeyo laakiin hadda sheekada waxayba taagan tahay dambi baaris kale ayaa la soo gashay dambi baaristaasna waxaa laga yaabaa annaga inay dhibaato noo keento marka maxaan sameeyaa ii sheeg oo hadda ma waxaad i leedahay xarunta dambaarista kiiskan loo wareejihaa haa adiga howshaada un iska qabso inta dhiman maahinoo aniga igu daa wax kasta anaa soo gabagabayhaa howshaada un qabso okay taliya fasaxa tahay adig halo aryan haa taliya dadka agtaada joogo waad iska fasaxaysaa run ahaanta warbixinta aan helo oo keliya ayaa igu filan adiga marka waxaan kaaga baahanahay markaan ku soo waco keliya howsha ii qabo wayahay taliya amarkaaga jir haddan sameeyaa sheekada dib in loo soo celiyaa laga yaabaa ma fahanta laakiin waa arkaynaa sida ay noqoto maqnaanshaha gabadha lagu magacaabo maduuri idinka ayaa sabab u ah maxaa yeelay waxyaabahanoo idil ayaad la doonayseen teeda kale dhammaantiin waad bixi kartaan iga raalli noqdo mid ayaa idinka iloo maduuri saacada ka hor midkeeda ayaa la helay waa ay dhimatay macquul maaha hadda waxyaabaad rajaynayseen ayaa halkan ka socdo sababtoo ah kiiskan waxaa lagu wareejiyey xarunta dambe baarista mana laga yaabo in laga badbaado idinka waxaa idin wanaagsan abukaato khatar inaad qabsataan kolley uma malayna dhammaantiinna badbaadaysaan macsalaam
my man's got his madness. He's a master, a recipe for disaster. riyaa booskeeda ku celi adiga yaa tahay masaayadaa ku soo dirtay ayada maa ku soo dirtay ii sheeg mama eeda ima soo diran aniga qof daacadan ahay qaladaan galay waa ku barya igaraal noqo dadka aan runta ii sheegin aniga ma cafiyo sideeda bannanba mana ku cafiyahay The man's got some madness. Can put a finger on this mess. The man's got his madness. It's evil devil or even worse. Oh, happy God, I can't read him right. He's a mystery, no mastery. Is he a real story? ugu dambayn lacagtii ayaaba ku badbaadisay ka sheekeehe aqliley innaba caadi mati wax kastoo aad samayso waxaad ogaataa inaan aniga iga qari karin wax walbana waan soo ogaanayaa run ahaanti 21 saacadood keliya ayaaba sidan u dheeraatay ka warran aniga saaxiibbada iyo cadowga farqi inuu noo dhexeeya maba moodayn waxaan isdhahay saaxiibbo oo keliya ayaaba tihiin noloshaaba sidan iska mar kasta fursad ayay ku siinaysaa laakiin qadarta aniga ma rabo mana qorsheyahay inaan ku dilo laakiin waxa keliya oo aan ku qiyaanin wax kale maaha waa aamusnaanta qadarta ayaana kulmisa soomaa maxaa soo odhanaysaa adigu jacaylkayga ayaa tahay waan ogahay laakiin waxaan rabaa wax caddayna in aanan ka tegin si aan u baabi'iyo markaa arrintaasi lacag ayay u baahan tahay innagood ogtay lacagaynu haysan habeeraata ma jirto laakiin jidkan lacagta ku helilayn ayaynu taagannahay waa inaynu hellaa sidaynu lacagta u heli lahayn adiga cid ku ogaanaysa ma jirto arrinta aniga ayaad ugu dayanaysaa ka seexo waan ogahay arrinkaas inaad ka taxadiraysay saa u socotana booliis caadi ayaaba noqota maalmahan anigu nin askariya dartiis ayaa noloshaydo dhan halis u gelinaya taasina waa mid anigii qusaysa ha u bixin laakiin waxaa ogaataa askari keliya maahan mid tuugaa ku jiri karo mid daacadaa ku jiri karo keliya waxay kala duwan yihiin booliiska gacanta bistooladda markii ay ku dhigaan dadkaasi hadday ogaadaan askari inaad tahay anigu saacadda amaba ku aqaanaba waana ii dilayaana xisaabta ku dar laakiin si fududba haddaan dadka u dili karo xanuunkana si fudud waan ku ilaabi karaa laakiin adiga taaba ka soo qaad laakiinse innagu meeshan waan iskaga cararaynaa lacagta ugu horreeyaan hello deymanka ayaan iskaga bixinaynaa meeshaa maro muuqaalla waa ayaa noqonaya dibba layma arkaayo baan ku yidhi haddaan soo noqdoba haba i dilaan hana i qalqalaan baan ku yidhi layma arkayo baan ku yidhi adiga samal kugu kalsoonaan karaa nin booliisa ayaad la heshiisa howlna waad la qabanaysaa kadibna waa kaa shakiya ayaad dhehaysaa macquul meena wasiirka saaxiibkaya saacaddan muxuu ii soo garaac si ku xiro wasiirkaan soo hadlayaa mudane wasiir soo hadal haya taliya see tahay maxaa cusub xaaladdaada ka waraya niyahow baaritaanaan iska haya meelahan xoogaa sheeka ayaa isaga jira adiga dhankaaga
maxaa yeesaa ii sheeg anigu waa iska fiicana kow dheh laakiin ilka xanuuna i wareeriyaan ku dheh goosaa sayid ii xanuunaya laakiin waa ku dalacsiiyo ogowiya mahadsanid waa laisku leeyahay laakiin hal arrinaa rabaa inaa ii samayso Soo daa. gabaraa ka soo qaadaysaa waddada sigiishaba waxaana geehaysaa saldhigga booliiska waalidiintida uu imaahay uu kana soo wadahay axsaankaas keliya ma ii samayn kartaa ama barkaasha wacawa kugu culusta arrinka inaa samayso ka seexa anigaa kuu samaynaya liba tan kale aniga ayaaba kuu jooga ninkaas maxaad ku falaysaana waxaan ku falaya jirin alla hore saas haddee taa gabadha sawirkeeda iyo magaceeda ii soo dir wax walbana aniga kuu qabanayo joy nambarkiisa kuu soo dira isagaa inta kale kuu dhammaystiraayo dhib male raaxadaada qaada wasiir haye lambarka oo keliya ii soo bas 3 dhib male anigaa qabacaayo howshaan anigaa qabanayo okay wayahay bye bye kaale arrin saa waaweyn maaba wasiirkeedii ka dhexaysa wasiirkan aniga saaxiibkay waaye qaasna waa uu yahay hadda kahor xataa asiga ayaa idilacsiiyey wuxuu qabay dhahana waan qabanaa xataa dad soo dila doo dhaha waa dilaya sharaayig ninaan aad ugu kalsoonaa waa ninkaan tan kale dadkaas maadaama ay naga sarreeyaan sida daanyarado kale inaan ugu shaqayno waan ku qasbannaa fahant lambarka ii sheeg ba lagu soo 98 telefoonkaaba iga damay uuf kaaga iigu qor haddii ay macquultaa keena ku qortay hoo ku qorina ka garaacabade mahadsanid hello joy haa waa ku maqlaa isbatoore sarkaantiyaa kula hadlaya si fiican wasiirka ay kaa soo dira soo ma si fiican waxaan kaa rabaa gabadhaas inaad soo wado saldhiggana aagiisa kadib waalidiinteeda imaanaya ayagaa kaxaysanaya hawsha inta dhimana ayagaa dhammaystirnaa adiga waxaan kaa rabaa intaasoo keliya inaa ii qabato qaraabadeeda waa ii joogaan laakiin aabbaheed kuma kalsoon adiga gabadha ii soo kaxay oo keliya intaas haddaa ii samaysaa abaal weynaa ii samaysay okay waddada 5 ka soo wadaysaa saldhigga toos u geehi dhib ma lahan ka seexo arrinka anaa kuu soo waayahay waa maasantahay mahadsanid telefoonka waa ku dhammaysto gabar ayaa iga soo wacay sawirkeedana waa lagu soo dirayaa waa sawirkeeda iskale baa tiri yacni aniga ayaa ii qaasditaa gabadha waa gabar qurux badan lacag ayay noo geynaysaa iyo qaybta lacagta ayabay shaqaysaanaya sheekadaas waa ka tooba keenta iska daa weydfi maa tiri weydfi ma xilligan tegaynaa dabcan oo haddii layna soo garaacana ka waran gabadhaan kaxaynaynaa meeshaan geynaynaa kadibna waan ka soo laabanaynaa haddii la soo garaacana waa u tegaynaa meeshana laga soo garaaco ma kula tahay inagu shaqada inaynan qaban karin dadkaas haddaynan ka maqnaano ugu weyn naga sheekinayaane aniga ayaa shaka bixinaya meesha dhaqsiyaan ku tegayna dhaqsina waa ku soo laabanaynaa maxaa ku hela adig maanta jareys iyo bararaqaab ii keenta kale sheek kalma ii wadaa barraqda caqliga ayaa ku aasan waxaan kuu sheegaa aniga meeshaa igee shaqadaada adigu soo qabso hadhowna meeshaad igu soo maraysaa yaaq gabadha waxaan ahay ma og waxay tahana ma ogi laakiin haddii adiga ay la socoto waxay aaminaysaa inaan xasil ah oo iskaabulaanayn waynay aaminay sheekadan ka hor keliya gabadha warbixinteediisii mudhuuri manool ayaa la dhaa aabbaheedna kariish halo haa aabbo qof iima imaanayn miya qofaan kuu soo diray weli kuma imaan miya gabadheeda maya aabbo cid ii timid malaha waddadaan weli taaganaa ka waranay waxbaa ka walwal qof kasta uu kuu imaanaya annagana waddada ayaan ku soo jirnaa hawshan adiga ayaa qabanayo gabadhna saldhigga booliska oo kaxaynaysaa muddo haddii ay ku dhahdaan aabbaha ayaa ii kaa soo dira dheh oo anigu maxaan odhanayaa adigu maxaad qabanaysaa macan badan see wax kaayin adig ma marka qaaradii madax adeega keentaaya anigoo nina gabar sidee ii raacaysaa adaaba gabare ma tasabta tan kale haddii ay wax ku weydiiso askari ayaan ah dheh inay kaashi kasi marwarto yalla yahay macan badan soco gogo waxaan rajaynayaa kuwa kale inaanay inagana soo garaacin jeebadan qabso way ku caawinaysaa gordha waxaa soo dhawa xilligaan lacagta heli lahayn aniga adigana magaaladan waa isaga tegaynaa yalla mandhuuri adiga miya haa ani waaye aabbaha baa noo kaa soo diray isbartoore shirkaantina gaadhiga ayuu ku sugan yahay inakeen markaan ku kaxaynee fishaal boolis ah yuniformkaaga aabahe saaxiibow sida muhiimaddu maaha yuniform in la qaato dhar caadi oo lagu shaqayn karaa ee kaalayo na soo raac aabbahay aa wacaya aabbo maxaa boolis iigu soo dirta ani
qofiyaha nagu asaarin inakan kaalay soo raac wararkaa soo diray inakan yaa akhi gal aabbaha aad ayuu kaaga taxadiraay waxyaaba qaas oo kaaga baqanaya miyaa jiran ii sheeg waaba la yaabanahe halo hooyo haa waddada ayaan ku soo jirnaa hooyo maxaa boolis iigu soo dirtay yaaqay adiga warka badan habeenima gabadhaada sidee boolis uga aaminaysa hooyo maxaa kaa qaldan yaaq cid kale annaga ma aqoonin isku day inay fahanto marka gabadheeda hooyo sidaas inaad samayso ma aheen yaaqay waddada inaan ku dhintaa la ii qaatay maxaa saas uga hadlaysaa ceeb waay soo moogid gabar saacadan waddada booliska ka soo kaxeenayan maxay tahay halo maduuri mii maqshaane annaga ayaa ku imaanayn waxba ha ka welwelin halo maduuri waan ogaa xilligan inaan ku wado saldhigga booliska ku geeyo inaad ku qanacsanin laakiin meel kale haddii adiga jirto kuu dooqantaa waan ku geynaya ii sheeg meel kale ma aqaano waqtigaan aan aaday iska daa fanbroch.com fanbroch.com maanta haddii aan daahna ka waran xoogaa war hawsha dhaqsi haddaanu qaban weyno arrintan mar dambe dib uma arkayna la soco laakiin gabar ayaan wadnaa meeshaasna ma aadi karno ma fahanta gabarey haddii ay macquul tahay meel kalean rabnaa inaan marno booliskana waa ku geynaa saldhigis laakiin waxba ka baqin annaga ammaankaaga sugeen okay waxaad doonto samee yaaqay saldhigga booliska inaan taga aniga uma degdegaayo mana rababa waxayna halkaan nagu sug waan kuu soo laabanaynayaa adigana deji boorsada waayahay namari mar hore ayaa idin sugaa maxaa idinku dhaco dib ugu soo dhacdeenna ii sheega bal waa runtaa qaladku waa xaggayga laakiinse arrimo yar ayaan soo dhammaynayni ninkan magaciisuna waxa weeye askari inuu naqan ayaan rajaynayaa magacaygu waa nakuul arrimaha nakuulna hore ayaan kuu sheegay guuldarada ma jecli daroogada markaan idin siiyo waxaan u baahanaa lacagtana inaad isiisaan waan kala bedelanaynaa haisdhaqaajinin ninkan waa boolis boolis maxaya yaa kuu sheegay ii sheeg gabadha gaariga saaran ayaa ii sheegtay war waa boolisbay kuu sheegtay mase noocaan ka ahaya kuu sheegtay booliska waryada ninka annaga kalsooni kuma qabi karno awalba dadkan aniga meel fiican uma wadin waxaan rabay dhammaantooda inaan baabiyo soo afjaro haddana hallayga soo afjaro Kujera. wuxuush ku dhalay waa kuu jeedaa
sheekadiina sidaan ayaanba ku soo afjaray bravo rafati soo baxaan baxne shidanti waxaan u malaynayaa kii baaskuladdu kugu qabanayay inantiinu soo dilay war maxaad samaynaysaa مريم بحني يا فانتي البدنا نقتل بحياتي وفوق قيانو عصب وايتن أنيق مياد إيقا دومانيسا رفتي سيدان هاسميني وادوكتا قرب بدن إن أنكو سوسي وحياو فرب بدن ناسل صوت سمين أدون أو إذن لو أسل صوت لكن ما أنت ورقضوحن مياد إيقا جعلي ستي ما هذا عيما دومانيسا دنبيلة آيات نقط ما الله بانين دنبيلة إنا نقط رفتي كمي حدرتن وحربات دنبيدو إدل إن أن إسكردقو لعكسنا وانو بانا حكيكي سيشك ومعقول إن أدي عرضسو لكن أوغو إيغما دومن كرتد ماي كيكي دوم وحبضن أيا نولشان كل رادنا يرونو هانتي رفتي حقيت جوكتا ديبدا الصبح وحبا مكو سميناي رفتي وكبر يا الصبح نقدا يا حقي رفتي يا جوكتا ايش نل الريح أريرك أورو نل الريح أريرك أورو ملسك روري رفات كراحة كدم بيسي وكور مودي رياضي هاي قروني يا حبيبتي رفتي بهلي باب أبخم شلي يا عيد الديوانة
khiyaano leyda khiyaano weelkeeda taabula maanta dhan ayaan kuugu yeeraay hoo xataa hal mar ma ii quuri weyso maxaa dhacay waan ku barya walaala wax walba anaa kuu sharxaysa geeda wax walba adiga maa ii sharaxayo wax walba siiyiin anaa kuugu sheegay aniga sifiisa beela waan ku baryay iska kay cafi abraa waxaa loo yidhi sir naageed lagama sal gaaro hurdo dheer ayaan kuu diraa ashraayg akhbaar degdeg ayaana soo gaartay kiiska maalmahan la hadalhayay ayaa la soo gabagabeeyey waxaana la ogaaday wasiirka inuu ku lug lahaa sidoo kale gaashaanlahana wuxuu magacaabay tiim cusub ee kiiskan baaro waxaana ka mid ah tiimkaas isbatoore sarkaanti asiga ayaa loo xilsaaray halo ay sarkaantii iyo rayaan noqotay wax kastana gacmaha filimkan waxaa lagu tarjumay studio Famproj Mogadishu ما جوجيها ملقو جوج أنا ميلان كمخلوق هيا إيجا صوهوبي هي ديار حاضر يا حاكو قدع قفا تليفون ما هنقول تيدي يا ما دارتيدو هذا دار سويا انا هو هاي اي كاذبو هدو دنسيها دارن كوضايا هي Lost in a dream, fruit broker. One look at life, a shattered past. Tick tock, many little pieces. Tick tock, pile of wreck. Tick tock, walk from it all. Tick tock, never too far. Into the darkness, waiting for the light. Tonight, this is the night. It's 21 hours.
.com fanproj.com Into the darkness, waiting for the light. Tonight, this is the night.